assalaamu calaykum. Gaokao waa imtixaanka gelitaanka jaamacadaha heer caalami waxaana sanad walba lagu qabtaa dhulweynaha Shiinaha. Imtixaankan ma aha imtixaan caadi ah, waa mid ka mid ah imtixaanada ugu adag adduunka hadduusan ba ahayn kan ugu adag. waa imtixaan magaciisa oo kaliya gilgila qulubta malaayiinta ardayda Shiinaha oo lagu yaqaano hawlkarnimo iyo dadaal. ma qiyaasi kartaa inta saac uu soconayo imtixaankan iyo inta maalmood waxaa ka siiya badan inta qof ee galaysa imtixaankan iyo tirada goobaha lagu qaado. isoo dhawey dhigtaada waxaan soo wadaa tirooyin aad la yaabi doonto. waxaa gala imtixaankan 10.7 milyan oo arday, 7,000 oo ah goobaha imtixaankan lagu qaado. qolalka lagu galo imtixaankanna waxay gaarayaan 5 milyan oo qol iyo ku dhawaad 1 milyan oo kormeerayaal ah. wuxuuna soconayaa imtixaankan guud ahaan 10 saacadood waxaana laga yaabaa inuu gaaro ilaa iyo 3 maalmood. wuxuuna ka kooban yahay su'aalo aad u adag. intaanan gudaha u galin muuqaalka, haddaad nagu cusub tahay kusoo dhawow channelka Iftiinka Waayaha adoo subscribe saaraya muuqaalkanna like saar si macluumaadkan uu u gaaro dad badan. mahadsanid. Gaokao waa imtixaan ardayda Shiinaha ku qaata diyaarintiisa 12 sano. waa halbeega kaliya ee gelitaanka jaamacadaha Shiinaha, waxayna galaan ardayda sanadka ugu dambeeya ee iskuulka. waalidiinta ayaa keena carruurtooda goobaha imtixaanka iyagoo dareemaya farxad, sababtoo ah carruurtii ay soo korinayeen 18 sano ayaa wajahaya imtixaan uu galo kii ugu adkaa noloshiisa. waxayna rajo ku qabaan carruurtooda inay imtixaanka si fiican uga soo baxaan. dhanka kale, si ka soo horjeeda farxadda waalidka, imtixaankani waa baasiin iyo dab loogu talagalay ardayda Shiinaha. wuxuu leeyahay taariikh madow. sanadii 2012 waxaa soo shaacbaxay sawiro naxdin leh oo muujinaya arday qaadanaysa cirbado si ay si fiican ugu diyaariyaan imtixaanka. sidoo kale 2014 waxaa isdilay arday 18 sano jir ahaa kadib markii uu keenay buundo yar. luqadda caadiga ee Shiinaha iyo xisaabta ayaa lagu daraa dhammaan imtixaanada. sidoo kale ardayda waxay dooran karaan mid ka mid ah Ingiriisiga, Faransiiska, Jabaan, Ruushka, Jarmal ama Isbaanish sidii imtixaan luqad shisheeye ah, iyadoo ardayda badankoodu ay doortaan Ingiriisiga. gobolada intooda badan ardaydu waa inay kala doortaan mid ka mid ah Social Science ama Natural Science. ardayda doorata Social Science ama cilmiga bulshada waxay galaan imtixaan dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda, sayniska siyaasadeed iyo juqraafiga, halka kuwa doorta Natural Science ama cilmiga dabiiciga ah laga qaadayo imtixaan Physics, Chemistry iyo Biology. natiijada guud ee uu ardaygu heli karo waxaa lagu qiimeeyaa guud ahaan isku darka buundada maadooyinka. natiijada suurtagalka ah ee ugu badan uu keeni karo ardayga way ku kala duwan tahay sanadba sanadka ka dambeeya iyo gobol ilaa gobol. guud ahaan, imtixaanka gelitaanka jaamacadaha Shiinaha oo loo yaqaano Gaokao waxaa la qaadaa 7 Juun ilaa iyo 8 sanad walba, inkastoo gobolada qaarkood ay u baahan karaan maalin dheeraad ah. aan kugu sii daree xaqiiq taariikhi ah. markii ugu horeysay ee imtixaankan la qaaday waxay ahayd sanadii 1952. sidoo kale waxaa jira imtixaano kan oo kale oo adag. wadamada waaweyn inta badanna waxay leeyihiin imtixaano adag oo lagu kala reebo ardayda, waxaana ka mid ah dalalkaas Hindiya waxay leedahay imtixaan uu ku qarwo arday walba oo raba inuu barto qaybaha kala duwan ee injineeriyadda. in ka badan 5 milyan arday ayaa sanad walba imtixaankan u fariista, waxaana la aqbalaa 2,000 oo keliya. waxaana lagu magacaabaa imtixaankan IIT J Examination. intaan baaritaanka mawduucan ku jiray waxaan arkay qoraal sidaan u qoran oo iga yaabiyey. yaa u malayn lahaa dhadhanka khamrigu inuu yahay mid ka mid ah imtixaanada ugu adag adduunka. imtixaanka Master Sommelier Diploma ayaa ka adag imtixaan walba, wuxuuna ka soo bilowday 40 sano ka hor dalka Ingiriiska. maantana 200 qof oo keliya ayaa la sheegay inay ku guuleysteen.
imtixaan kale ay qaadan may waayeen wardhibbadna jasiiraddan yar ee lagu magacaabo Ingiriiska. haddaba halkee buu imtixaanka Gaokao kaga jiraa liiska imtixaanada ugu adag adduunka? intaan ayuu ku egyahay muuqaalkeena. kani waa janalka iftiinka waayaha. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.